sida aynu ku soo aragnay qaybtii hore World of Immortals, Shoujani saaxiibadiisa waxay gudaha u galeen magaalada dhimatay oo ah meel ay dhacdo halis badan ka dhacdo boqolaadkii sanaba hal mar oo keliya, halkaas ay dhammaantooda ku xayirmeen si uga faa'iidaysto aqoonta ay leedahay. Shoujani wuxuu Jinjian ku yidhi, xusuusnow, goor kasta waan ku dili karaa, sidaa darteed waxa ku wanaagsan inaad noo sheegto wax kasta oo aad taqaan. Dhanka kale, kooxda waxay la kulmeen ruux shar ah oo aad u xoog badan, kaasoo doonayay inuu dilo si uu u nuugo tamartooda, laakiin iskaashiga Shoujani iyo saaxiibadiis ayaa ugu dambeyn lagu jabiyey isaga. Markay sii socdeen, waxay la kulmeen Zhao Linar oo markaas ogaatay xaqiiqda ku saabsan Jinjian iyo sida ay hadda ugu jirto gacanta Shoujani. Intaan xiisad cusub bilaaban, Lano ayaa timid, waxayna joojisay murankii iyo dagaalkii. Shoujani wuxuu qalbigiisa iska weydiiyey, ay dhab ahaantii tahay haweeneydan, markaas waxay kasoo muuqataa meelaha ugu khatarta badan. Halkaas ayayna ka bilaabanaysaa qaybtan cusub. Lano garabkeeda waxaa saarnaa masduulaagii boqorka ee Violaha ahaa ee yaraa, waxaana si farxad leh ugu booday Coco, maadaama labadooduba ay ka tirsan yihiin isku jinsiyad oo isfahmi karaan. Waxay muuqdeen inay si qarsooda iskula hadlayaan. Dabadeed masduulaagii boqorka ee Violaha ayaa si filaan gadaashooda wax ugu tilmaamay. Isla waqtigaas, Kaylo iyo saaxiibadiisa ayaa iyagoo naflacaari ah u soo orday dhankooda. Waxaa si daran u eryanayay ruuxyo duul oo aad u halis badan, kuwaasoo si xul ah uga daba yimid. Markii masduulaagii boqorka ee Violaha ahaa uu arkay muuqaalkaas, isla markiiba wuu jeestay oo cararay. Coco isaguna dib uma harin, wuxuuna durbadiiba dabagalay Dragon-ka yar. Lano ayaa markaas ku tiri kooxda, masduulaag kastoo boqor ah wuxuu leeyahay dareen iyo awood u gaar ah. Waxaan hubaa inuu ogyahay meel ammaan ah ama waddo aynu kaga baxsan karno khatartan. Aynu dabagalno isaga. Iyadoo aan waqti lumin ayay Lano dabagashay masduulaagii boqorka ee Violaha. Shoujani iyo dhammaan saaxiibadiisna way raaceen. Xilligaas, cidna ma haysan waddo kale oo naftooda ku badbaadiyaan, sidaa darteed xitaa Kaylo iyo kooxdiisii waxay ku biireen iyagoo wada cararaya. Laakiin intay sii ordayeen, waxay gaadheen meel aan midkoodna weligiis filayn. Hortood waxaa ka muuqday webi weyn oo qulqulaya, biyihiisuna dhammaantood waxay ahaayeen casaan dhiig u eg. Muuqaalka webigaasi wuxuu ahaa mid cabsi badan, waxaana u ekaa sidii inuu ka samaysan yahay dhiig saafi ah oo qarniyo badan socday. Dhammaantood waxay istaageen iyagoo la yaaban waxa hortooda ka muuqda. Webiga hortooda ka muuqday wuxuu ekaa sidii inuu gebi ahaanba ka buuxay dhiig, waxaana kasoo urayay ur aad u xun oo qof kasta neefta ku dhibaysay. Markii Zhao Linar ay urtaas dareentay ayay tiri, waxay ula muuqataa in webigan uu dhab ahaan ka buuxo dhiig. Webigan waxaa dhab ahaantii loo yaqaanay webiga dhiigga, waana webi dhaqa dambiyada dadka. Laakiin arrintaas waxay Zhao Linar ku abuurtay yaab weyn. Waxay isweydiisay, sidee bay suurtagal u tahay in webi dhiig ka buuxa uu qofka ka dhaqo dambiyadiisa una horsado badbaado ama xoreyn? Iyadoo weli arrintaas ka fikiraysa, Lurian ayaa tiri, miyaanu kan ahayn webigii dhiigga ee sheekooyinkii halyeeyada lagu sheegay? Aan marar badan sheekooyinkiisa maqlay. Markay hadalkaas maqashay, Jinjian ayaa tiri, haddii kan yahay webigaas, waa inay jirtaa buundo dhagax ka samaysan oo dul marta. Buundadaas oo keli ayaa noqon karta waddada aynu kaga gudbi karno webigan. Kadib ay u sii sharaxday kooxda, haddaynu ka gudubno webigan dhiigga, waxaynu heli doonaa fursad weyn oo kaga baxsano magaalada dhimatay. Ma jirin cid haysatay qorshe kale oo ka wanaagsan kaas. Sidaa darteed, Lano, Shoujani iyo dhammaan saaxiibadoodu waxay go'aansadeen inay rumaystaan hadalka Jinjian, iyagoo u dhaqaaqay dhankii buundada. Laakiin weli aadana ma ogaan wax ku sugayay markay cagta saaraan buundadaas. Markay gaadheen afaafka buundada, muuqaalkii halkaas ka muuqday wuxuu noqday mid kasii argagax badan sidii hore. Jinjian ayaa markaas tiri, sida ku qoran qoraaladii qadiimiga ah ayaan akhriyay, gudaha magaalada dhimatay waxaa ku yaal webiga dhiigga. Laakiin webigan waxaa dhex degan ruuxyo aan tiro lahayn. Waxay hadalkeeda sii raacisay, qof kasta isku day inuu buundadan ka gudbo. Ruuxyadaas oo dhan ayaa isugu tagi doona si ay u sameeyaan awood halis ah. Waxayna isku dayi doonaan inay dilaan qof kasta oo buundada dul mara. Kadibna waxay sheegtay arrin kasii cabsi badan. Intaas kuma ekaa, gudaha webigan waxaa ku nool makhluuq aad uga khatar badan ruuxyada kale. Intay weli arrintaas ka hadlayeen, ayaa si filaan ah gadaashooda uga soo muuqday ruuxyo duulaya oo tiro badan, kuwaas oo si xawli ah ugu soo socda, iyagoo damacsan inay kooxda weeraraan oo ay cunaan. Ruuxyadii duulaya ay si xawli ugu soo dhawaaday kooxda, iyagoo damacsan inay dhammaantooda dilaan. Waxay ahaayeen makhluuqyo aad u khatar badan oo qof kasta ay qabtaan isagoo nool kala goyn kara. Kaylo si fiican ayuu u garanayay halista ay leeyihiin. Cabsi darteed, isagoon cidina sugin ay si toos ah ugu orday buundadii. Lano ayaa ku qaylisay, Kaylo, ha degdegin, buundada si taxaddar leh ayaa loogu gudbaa. Laakiin wuu ka dhigo adeegay digniinteedii. Isla markii cagta saaray buundada, biyihii webiga dhiigga ayaa bilaabay inay si xoog leh u kacaan. Ruuxyadii ku dhumanayay webiga ayaa dhammaantooda isu yimid, waxayna isku urursadeen hal meel, iyagoo sameeyay gacan ruuxeed oo aad u weyn. gacantaas si xawli loogu booday Kaylo isna dib uma noqon, wuxuu la soo baxay seeftiisii wuxuuna ku dhuftay weerar hilaac ah kaas oo burburiyay mid ka mid ah gacmihii ruuxa,
laakiin taasi wax badan ma bedelin. Gacmo kale oo badan ayaa weli ka soo baxay webiga, waxayna hal mar wada qabteen Kyle iyo saaxiibadiis, iyagoon wax fursad ah helin ay gacmihii xoogga badnaa hawada ku tuureen, dabadeedna si toos ah ugu dhex tuureen webiga dhiigga. Maadaama webigu gebi ahaanba ka buuxay dhiig iyo tamar madow, ciddii ku dhacday uguma soo bixi karin si fudud. Markii Lurian ay aragtay wixii dhacay, aad bay u xanaaqday. Waxay ku qaylisay Jinjan, maxaad noo samaysay? Adiga ayaan ku aaminay oo halkan ayaan kuu soo raacnay. Hadda waxaadna keentay meel aynaan naf kaga bixi karin. Matan aad markii hore qorshaysay, ma waxaad doonaysay inaan halkan ku wada dhimano? Jinjan ay si degan ugu jawaabtay, qofka taxaddar la'aanta ah waa kan ugu horeeya ee dhinta. Haddaad feejignaataan, weli waad badbaadi kartaan kulligiina. Waxayna hadalkeedii sii raacisay, sida aan ka akhriyay diiwaanadii qadiimiga ahaa, haddaynu ka gudubno buundada webiga dhiigga, waxaynu heli doonaa waddadii aynu kaga bixi lahayn magaaladii dhimatay. Isla markaas, Lumo ayaa gadaashiisa eegay. Ruuxyadii duulayay weli way sii daba socdeen, mana ay joojin weerarkooda, laakiin indhihiis waxay qabtaan laba qof oo ka soo cararaya hoosta ruuxyadaas. Waxay ahaayeen wadaad Yijan iyo Jinka Seefta Madow. Shojan markiiba wuu gartay labadooda, isagoon labalabayn ayuu damcay inuu u gurmado, maadaama ruuxyadii duulayay ay weerar ku bilaabeen. Jinka Seefta Madow wuxuu seeftiisa ku kala jarayay ruuxyada, isagoo adeegsanaya xawaare aan caadi ahayn, halka wadaad Yijan isaguna u adeegsanayay farsamooyinkiisa dagaalka si uu isaga difaaco, iyagoo labadooduba si geesinimo leh isaga caabinayay weerarka joogtada ah ee ruuxyada duulaya. Halkaas waxaa ka bilowday dagaal aad u culus. Wadaad Yijan iyo Jinka Seefta Madow waxay si geesinimo leh ula dagaalamayeen ruuxyadii duulayay, iyagoo midba midka kale ka dabargoynayay. Isla waqtigaas ayaa Shojan isna goobta yimid, isagoo sita seeftii xidigta boqorka. isagoon wax waqti ah lumin ayuu weerar isdabjoog ah ku qaaday ruuxyadii. Seeftiisuna waxay hal mar kala goynaysay kuwo badan. Markii wadaad Jijan arkay Shojan, wejigiisa farxad ayaa ka muuqatay, wuxuuna ku yidhi, waad ku mahadsan tahay saaxiib, waxaad timid xilligii aan kuu baahnaa. Dhanka kale, Lano, Lurian, Lumi iyo inta kale kooxda ayaa iyaguna galay dagaalka, iyagoo la tacaalayay ruuxyadii duulayay. Laakiin dhibaatadu halkaas kuma ekaan. Markastoo qaar dilaan, waxaa soo muuqanayay kuwo kale oo kasii badan kuwii hore. Tirada cadowga si joogta ah u sii kordhaysay. Markaas ayuu Lumi soo baxay, isagoo adeegsaday awooddiisa gaarka ah, si uu hal mar u baabi'iyo ruuxyo badan. Isla waqtigaas, Jinka Seefta Madow waxaa ku soo booday ruuxyo kale oo damacsanaa inay hareereeyaan, laakiin ka hor intaanay gaadhin, Lano ay soo faragelisay, iyadoo ka badbaadisay weerarkaas. Jinka Seefta Madow asyaab leh u eegay, wuxuuna yidhi, ma dhabbaa, adiga ay badbaadiyey, laakiin xaaladdu halkani kuma joogsan. Wax yar kadib, waxaa hortooda ka soo muuqday ciidamo mugdi ah oo jirkooda ay ka buuxday tamar madow. Muuqaalkooda kaliya ayaa muujinayay inay yihiin cadow aad uga khatar badan ruuxyadii hore. Mid kasta oo ka mid ah wuxuu watay awood u gaar ah, taasoo ka dhigtay kuwo aad u adag in lala dagaalamo. Markii Lano aragtay ciidankaas, waxay si degdeg ah ugu tiri saaxiibadeed, ma sii joogi karno halkan, waa inaan sida ugu dhaqsaha badan uga gudubnaa goobtan. Shojan ayaa markaas u jeestay dhankii Jinjan, wuxuuna ku yidhi, hadda ii sheeg, sidee looga badbaadaa gacmaha dhiigga? Wax kasta taqaana, hadda ii sheeg. Jinjan ayaa madaxa ruuxday, iyadoo ku jawaabtay, qoraalladii aan akhriyay kama aysan hadlin sida looga baxsado gacmaha dhiigga. Wax kastaan ka ogaa meeshan iyo khataraha ku jira waan idin sheegay. Inta ka dambaysa idinka ayaa qasab idinku ah inaad xal kale raadisaan. Jawaabtaas ay Shojan ka xanaajisay, laakiin ma jirin wax uu markaas samayn karay. Dhanka kale, markay ciidamadii mugdiga ku soo dhawaadeen buundadii dhagax ahayd oo dhan ay si xog leh u gariirtay. Gariirkaas ayaa kiciyay gacmihii dhiigga ee ku qarsoonaa webiga. Gacmihii waaweyn ayaa mid mid uga soo baxayay biyaha, iyagoo diyaar u ah inay qabtaan oo dilaan qof kastoo isku day inuu buundada ka gudbo. Lurian ayaa iyadoo walwalsan tiri, hadda xaggee u cararnaa? Meel aan u baxsano ma jirto. Markaas ayuu Jinka Seefta Madow cod adag ku yidhi, si kastoo ay noqotaba, waa inaan ka gudubnaa buundadan dhagaxa ah. Taasi waa rajada keliya aynu weli haysano. Inta ay ka fikirayeen sidii ay uga gudbi lahaayeen buundada dhagaxa, ay isla filaan ah gadaasha ciidamadii tamarta mugdiga lahaa waxaa ka soo muuqday bahal aad u cabsi badan. Tamarta ka soo baxaysay jirkiisa waxay ahayd mid aad u xoog badan. Xataa boqolaal ka mid ah ruuxyadii duulayay ay isla markiiba ku baaba'ay markay tamartaasi ku dhacday. Markii Lano aragtay bahalkaas, waa argagaxday. Waxay ka baqday inuu kooxda weeraro, laakiin bahalkii oo ahaa masduulaagii hilaaca ama boqorka daraagoonka libaaxa, si xul ah uga soo degay buurta, isagoo orday sida hilaaca oo kale. Jirkiisa waxaa ka holcayay danab xoog leh. Markuu dhulka ku soo degay, dhulgariir xooggan ayaa dhacay. Ruuxyadii hortiisa joogayna hal mar ay wada baaba'een. Lano ay markaa si degdeg ugu tiri saaxiibadeed, qofna uusan isku dayin inuu jidkiisa galo. Taasi waxay noqonaysaa geeri la hubo. Masduulaagii hilaaca aad buu u dheereeyey, hal bootin ayuu ku dulmaray kooxda oo dhan, isagoo si toos ah ugu orday dhanka buundada. Laakiin isla markii uu dulmaray buundada, gacmihii dhiigga ayaa mar kale ka soo baxay webiga si ay u joojiyaan. Hase yeeshee, masduulaaga hilaaca ma ahayn bahal caadi ah, hal weerar oo keliya ayuu ku qaaday,
wuxuuna gebi ahaanba ku burburiyey gacmihii dhiigga sida iyagoon waxba ahayn. Markii Lurian aragtay arrintaas ay ku qaylisay, fiiriya, gacmihii dhiigga waa la burburiyey, tan waa fursaddan ugu wanaagsan, waanaan hadda ka gudubnaa buundada. Laakiin Lano ay gacanta u taagtay iyadoo tiri, suga, aan aragno wax masduulaaga Hilaacu samayn doono. Kooxdu way istaagtay iyagoo indhahooda ku hayay boqorka daraagoonka libaaxa. Masduulaagii ama daraagonkii ayaa si xawli leh hore uga booday, wuxuuna gaadhay meel ay ku taalay goobo sixireed qadiimi ah. Kadib wuxuu dhibic yar oo dhiiggiisa ah ku daadiyey goobtaas, wuxuuna bilaabay inuu ku dhaqaajiyo awooddiisa ruuxiga ah. Waxay ahayd goobta dhiigga yaalla bariga, oo ahayd goob sixir oo qadiimi ah. Markii Jinjin aragtay, waxay tiri, miyaanan idin sheegin, waxaan hore u akhriyay in meeshan ay ku taalo goobta dhiigga yaalla bariga. Hadda waxaan hubaa in wixii aan ka akhriyay qoraalladii hore ay run ahaayeen. Halkaas ay ku dhammaanaysaa qaybta 39aad. Asxaabta sharafta badan, like una saara muuqaalka. Haddaad nagu cusub tahayna nagu soo biir, waad ku mahadsantihiin daawashadiina.